Sheekh Maxamuud Xaaji Yuusuf oo kamid ah culimada Puntland ayaa ku baaqay in si degdeg ah loo gargaaro bulshada ku waxyeeloobay webiga Shabeelle ee ku dhibaataysan magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Soomaaliya meel ay joogtaba muslimiinta oo dhanba waa isku hal jir sidii nabigu yiri calayhi salaatu wasalaam xadiiskii saxiixa ahaa markuu ka waramayay dadku sida ay isugu danqanayaan mathalul mu'miniina fi tawaadihim wa tarahumihim wa ta'aatufihim كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى ماشي لبعته كدعده لبعته الصومالي دواء ودقادي dadkaas walaalaha ah oo barakacay oo duufaantu ay barakicisay qof walba wuxuu u qaban karo haw gurmado codkii uu gurman kara dhaqaalkii uu gurman kara gaariidkii uu gurman kara dawladuna hadiyada laga rabaa nidaam inay soo dejiso dadkaas wax loogu qaban karo oo ama dibad ama gudahaba wixii loogu qaban karo loogu qabto dadka walaalaha ana waa u wada danqanaynaa hal loo wada gurmado dadka muslimiinta dhibaatada soo gaadho dhibaatada waa la wadaaga kulligeen waa inaan ka wada danqanaa. Wasiirka Wasaaradda Cadaaladda Arrimaha Diinta iyo Dhaqan Celinta Dawladda Puntland Saalax Xabiib Jaamac oo shirkan joogay ayaa isna dhankiisa sheegay in bulshada Puntland lagu yaqaanay gargaar hagar la'aan ah oo ay ku caawinto walaalaheeda kale ee Soomaaliyeed haatan looga fadhiyo inay door shariif ah ka qaataan kaalmaynta bulshada Baladweyne ku tabaalaysan. muxuu ahaa reer Baladweyne iyo muxuu ummadda muxuu fatahaadka muxuu ahaa runtii dhibka ku hayo gobolada dhexe waxaan leenahay ilaahay samata bixiyo ilaahayna inta ugu akeeyo muxuu ahaa waxaan leenahay loo gurmado sida lagu yaqaan gaar ahaan dadka muxuu ahaa shacabka reer Puntland waligood gurma jiray walaalaha Soomaaliyeed meel bay joogan u gurman jiray waxaan leenahay loo istaago sida loogu istaagay musiibooyinkii hore inay ka qayb qaataan dadkii waxaan ka arkaynay runtii dhibaato fara badan hatta telefoonadka dadka ay ku wacan lahaayeen inaysan ku wacan karin shilin Soomaaliga inuusan u shaqeynaynin telefoonad baa la wada bartay EVC la wada diray u wada dirsameeyeen marka runtii dhibaato badan bay sheeganayaan dadkii cunno la'aan biyo la'aan marka waxaan leenahay loo gurmado muxuu ahaa laga diyaar garoobo insha Allah dulaa yiraahdo ayagana waxaan leenahay ilaahay ka dhib qaado dhulka muxuu ahaa dhibka jiro dadka leeyahay waa ku soo socotaa leeyahay fatahaadana ilaahay muxuu ahaa ka jeeyo dhinaca muxuu ahaa ka dhinaca ka mariyaan leenahay oo muxuu ahaa ummadda muxuu ahaa ilaahay muxuu ahaa khayr iyo farash khayr qaba u furo. Hadalka mas'uuliyiintan ayaa ku soo beegmaya xilli ay socdaan dadaallo arrintan loogu gurmanayo. Maxamed Xaliye, Puntland TV.